كلنا يولي ببرنامج كان حيسها له وياها نولشها سو دواذا وحبنتي شاكذا حكايات قصوين كمرتدى إيا مادة إيا أنو محمد وإذن الله نلسي شوغا شاكذا تطبات كان ديها يوحي سلها الكل كذا وحا اللي لها ضد هالضوات ضد لدنان محجو إلهي نوحي سبحان الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي لشديد haddii aad ku mahadnaqdaan waxaan idin ilaahay waan idin siyaadiyaa buu ilaahay ku mahadnaqahay naga yeeleen laakiin bini aadamku sidiisaba ma garto ladnaanta sheekadan baana muujinaysa arrintaasi kuwii gartay ilaahay naga dhigeen meel tuula ayaa bari waxa ku noolaa nin danyara ninkaasi tuulada waxa meheradiisu ahayd oo isaga iyo xaaskiisaba uu ku masruufi jiro quuta daruurga ay ka heli jireen xaabad duleedka magaalada uu ka soo guro nin laga yaqiinay tuuladu ahaa markaa meheradaha haddii tahay makhaayadaha iyo meelaha kale wax lagu kariyo dhan macmiil buu ahaa iyadan iskaba badnayna tuula ahayd xaabaduu keeni jiray markaa ayada uu xaabada ka soo guro ayaa iyana waxa ku noolayd shimbirtan hadasha ee loo yaqaano babqaaga shimbirtaasi ayaa waxay odhan jirtay weer keliya intuu xaabada gurayo isaguna jawaab qol u bixin jiray shimbirtaasi waxay ku celin jirtay dad ladnaan ma xajo dadladnaan ma xajo isaguna wuxuu odhan jiray markuu xaabada isku xidhu qaadanayo ayuu odhan jiray waa ka warhay bal annaga maa nala siiya nicmadaad sheegayso annaga ilkaa ku xidsan lahayn maalin walba waxaad leedahu dadladnaan ma xajo muddo markay saa ahaayeen ee shimbirtuna ay sidaa lahayd isaguna markuu tagayo intaa ugu jawaabo ayuu maalin maqlay iyadoo si lama filaan ah shimbirtii hadalkiisa tixraaday markay tiri dadladnaan ma xajo ee isna uu yidhi waad iska dhurmaysaa annaga xidsan lahayn oo baahanay ilaahay muuna siiyo ayay tiri isuganaa kuu sheegaya way kaa qubanuune sin maxaa tiri maase tiri wadaan kula hadliyaa dhegaysto ninkaagan xaabaysanaya soo maadoo dhana xidsanaya masuu yidhi haa markaasuu tiri haddaan kuu sheegayaani tuuladeenna kale inoo dhow ee magaalada weyn ee laynooga taliyo boqorka hebel ay inoo taliyo waa berigii boqorrada ka jalin jireen tuulooyinkii magaalooyinkii ayaa inan qulu leeyi jiray inantiisiina way xanuunsanaysaa daawana geed gaaban iyo geed dheerba uu fulo wuu waayay anaa kuu sheegaya dawadeeda ee geedkaa kuu dhow caleentiisa qaad waa kaa hadda adag taagantahay qallajiyo tun biyo ku dar qaad boqorkaasi wuxuu ballan qaaday ninka inantaa daweeya inuu u dhiso uuna noqdo ninka boqornimadiisa dhaxlaya ninkii degdeg buu geedkii u gurtay caleentii buu tumay isla markiiba biyuu ku daray si u sii ordayay ilaa waa nin dan leh ayuu subaxiiba tegay tuuladii kale ee boqorku deganaa raggii qasriga boqortooyada ilaalinayay ayuu hortegay soo quraaradii sida markaasi war xagad ku socotaadna kaagan jirqimaa xilan markaasuu yidhi waxaan ahay nin dabiib wada dawadanaan sidaa inantii boqorka ku dabiibaya nimankii ciidanka haba qoslay oo nin buka boqol u tali adna ma timid orodee boqorkaana faree galbaya waa runtaan wuxuu galay boqorkii rag la fadhiya mas-uul haye maxaad wadaa mas-uul waxaan nin dabiib sida inantaadii dawadeedii baan wadaa boqorkii baa qoslay maadna ma soo guraysa mas-uul haa orodee waaba inta ilaahay kugu dabiibaa aqalkii baa loo geeyey inantu waxay noqotay fadhiid way ka ciweyday dhakhtar walba waa loo keenay xanuunka hayo waxba ku tiigaali mayno dawadii buu yidhi ku maydho inantii baa la qaado hab loogu maydheen waabay soo fadhiisatayba mar labaadkii loogu maydhayna way istaagtay boqorkii de amarkiisii kamuu bixin iyo ballantiisii loo dhis ninkii boqortooyadiina isagaabuu odaygii furaa ka saari de adaa inankayga maamul aqalkii boqortooyada qasrigu aqal weyn buu ahaaye mafaatiixdiisii oo dhan buu u dhiibay maqsin qura oo ka harsanaa ayuu muftaaxii ka haystay maqsinkaa mooye inta kale adaa haysanaya mafaatiixda ninkii muddo markuu raaxadaa ku jiruu bilaabay cabasho inantii buu ku yidhaha aabbaha miyaanu igu kalsoonayn muxuu muftaaxa iga haysta intii kale buu ii dhiibay anige ma waxaa nin shisheeye uga dhigaya orda u taga aabbahaayoo muftaaxa ka soo qaad inantii baa tiri waar ilaahay hadduu adoo dhuxula ama xaabuula ah kaa siiyey waxaanoo barwaaqa ah ood maanta qasrigii oo dhan haysato maxaa kaa galay maqsinkan keliya may buu yidhi waa daacad dalma la'aan anaanu igu kalsoonayn hadduu igu kalsoonyahay muftaaxa wuu ii dhiibi lahaa waan bixise maalintii dambe inantiiba uu dhaafo boqorkii oo askartiisii hor socdo meel maraya ayuu ku yidhi boqor aniga miyaan adigu kalsoonayn mas maxaan kugu kalsoonaan waay sooya taladiiba haya haddaad adigu kalsoon tahay maxaad maqsinkaa muftaaxiisa igala hadhay asuu yidhi ma timi asuu yidhi haa horta muftaaxi waa kan buu yidhi waana ku siinaya askari buu yidhi wuxuu muftaaxa qaad maqsinkana u fur waxa ku jirana sii albaabkana ka tuur maqsinkiibuu furay mise waxaa ku jira labadii calal ee uu maalintu imanayay gashanaa iyo labadii kabood intii baa loo xidhay bannaankana waa loo tuuray
baabkaa laga soo xidha muddo markuu joogo isagoo nafahayso xaabadii qoranayaa shimbirtii aragtay markaasay tiri dad ladnaan ma xajo waasiru waa xaqiiqda annagaaba iska qobnay buuri xikaayaadka qisooyinka murtida iyo maadda iyo sheekado inoo dhaxa daawadayaal gabagabada barnaamijkeenna waa waayaha nolosha waxaan kaga tegayaanoo leh ha ilaabina ballanteenna xusuusnaada kulankeena